heshiiska dawladda Soomaaliya iyo shirkadda Fayfori dooda ka taagan Aadan Cadde Airport dhawaantan garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde waa albaabada ugu weyn ee dalka Soomaaliya waa halka ay ka soo degaan malaayiin qof ganacsato siyaasiyiin dalxiisayaal laakiin garoonkan muhiimka ah waxa ka taagan dood weyn oo ku saabsan sida loo maamulo cidda lacagta ka faa'iideysata iyo waxa ka socda gudaha garoonka muuqaalkan waxaan ku falaqayn doonaa heshiiska dawladda Soomaaliya la gashay shirkadda Fayfori dooda shacabka ee dhawaan ka taagan garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde Airport cabashooyinka shaqaalaha ka shaqeeya garoonka magacaabista maamulayaasha Turkiga ay arintan lagu eedeeyay shirkadda Fayfori waa shirkad Turkish ah oo sanadii 2013 lagu wareejiyay maamulka garoonka Aadan Cadde heshiiskii ugu horeeyay wuxuu ahaa muddo 15 sano ah iyadoo la siin karo 5 sano oo dheeri ah Fayfori waxay gacanta ku haysaa hawlaha garoonka sida hawlaha diyaaradaha maareynta dhulka dekedda suuqyada iyo adeegyada rakaabka ilaa iyo maamulka hotel Dikale ee ku yaala magaalada Muqdisho heshiiska dawladda iyo shirkadda ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay hesho in ka yar 50% dakhliga ka soo xarooda garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde maxaa dooda dhaliyay dhawaantan waxa baraha bulshada lagu arkay dad ka cabanaya shirkadda Fayfori sanadihii dambe waxaana soo baxaya cadeymo iyo walaayo adag kuwaas oo ka yimid shacabka shaqaalaha warbaahinta iyo hay'adaha dawladda miyaa la hayaa warbixin maaliyadeed oo la hubiyay taasoo muhiim u ahayd in la ogaado inta lacag ay ka soo xarooda garoonka lacagaha garoonka ka soo xarooda intee ay yihiin yaa xaqiiqdii ka faa'iideysta intaas waxa dheer waxaa jiray dood ku saabsan in heshiiska lagu galay si degdeg ah oo baarlamaanka loo marin taas oo soo saartay shaki ku saabsan daahfurnaanta iyo madaxbannaanida qaranka guud ahaan shaqaalaha garoonka ayaa marar badan sameeyay shaqo joojin iyo cabashooyin waxayna sheegeen in mushaarkoodu aad u hooseeyo qaar 200 ilaa 300 dollar halka shaqaalaha Turkiga ah ee ka shaqeeya garoonka ay mushaar aad uga badan kuwooda helaan sidoo kale fursadaha iyo jagooyinka sare ayaysan u helin shaqaalaha Soomaaliyeed si hufnaan ku dheehan tahay mushaarka oo dib u dhacaya mararka qaar iyo xaalado shaqo oo aan u qalmin garoon caalami ah ururada shaqaalaha iyo shaqaale badan oo maxalli ah ayaa sheegay in shirkadda Fayfori ay ku takrifasho shaqaale badan tanina waxa ay noqotay mid ka mid ah dhaawaca kalsoonida shacabka iyo sumcadda garoonka eedeymaha loo soo jeediyay waxa ka mid ah kuwa ugu xasaasisan wuxuu dhacay markii Ertugrul Cavalieri ninka la yiraahdo oo ahaa maamulaha hawlaha guud ee shirkadda Fayfori loo xiray eedeymo iyo xadgudubyo shaqaale arintan oo gaaray maxkamadii baaris xafiiska qareenka guud ayaa dhaawacay sumcadda shirkadda waxayna banaanka keentay in su'aalo ku saabsan sida mas'uuliyiinta Turkiga ah ay u maamulaan garoonka haddaba waxaa jira saameyn xun oo heshiiskan ku yeeshay shacabka Soomaaliyeed guud ahaan haddii garoonka Aadan Cadde si buuxda u shaqeeyo wuxuu noqon karaa mid ka mid ah meelaha ugu badan ee dakhliga dalka laga helo laakiin haddii xisaabaadka aan la cadeyn shaqaalahana aan lacagaha aan la ogaan karin maamulka ay qabtaan dad aan u hoggaansamin shuruucda dalka markaa faa'iidada garoonka ma gaarayso shacabka Soomaaliyeed heshiisyada noocan ah waa kuwa muhiim u ah dal kasta si waxay u baahan yihiin duruufahan kormeer iyo wada shaqayn dhab ah haddaba maxaa laga rabaa dawladda Soomaaliya inay uga jawaabto caqabadaha ka taagan iyo cabashada shacabka ka soo yeerayso shacabka waxay dalbanayaan dhowr arrimood oo ay ka mid tahay in la soo bandhigo dakhliga dhabta ah ee garoonka in la hubiyo warbixin maaliyadeed oo hufan lana xisaabiyay in shaqaalaha Soomaaliyeed helaan mushaar la hubo iyo xuquuq shaqo in dawladda si cad u qeexdo muddada heshiiska iyo waxa ku jira in turxaan bixin lagu sameeyo haddii heshiisku uu adeegayo danaha qaranka iyo haddii loo baahan yahay dib u eegis garoonka Aadan Cadde ma aha kaliya meel diyaarado ka kacaan waa astaanta guud iyo iridka laga soo galo dalka waana albaabada Soomaaliya waxaana meesha amniga iyo dhaqaalaha laga xakameeyo haddaba heshiis kasta oo ku saabsan garoonkan waa inuu ahaadaa mid u adeegaya shacabka kuwa maanta iyo kuwa birina u noqon kara tusaale ku soo biir Togala View oo si gudbi muuqaalka daawade muuqaalkan iyo muuqaalka xiga kulanti dambe